kulankan maanta lagu qabtay Muqdisho waxaa lagu lafaguray kursi deegaan doorashadiisu ay tahay degmada Baardheer ee gobolka Gedo kaas oo nambarkiisa lagu sheegay 108 isla markaana hadda si khalad loo geeyay degmada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland sida hadalka loo dhigay beesha iskala kursigan odayaashooda iyo waxgaradkooda ay maanta ku shireen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku sheegeen in khaladkaas uu sameeyay guddiga asteynta kuraasta baarlamaanka federaalka labadiisa aqal waxaana ay xukuumadda federaalka labada gole ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ugu baaqeen in kursigan sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo celiyo degmada Baardheer ee gobolka Gedo si aanu gacan kale u galin sida hadalka loo dhigay Ibrahim Suufi Maye ayaa kulanka markii uu soo ilaaday kadib waxa uu akhriyay warmurtiyeed ka soo baxay beesha iskala kursigan ujeedo cadeyn xadgudub asteen kursi number 108 kaasoo hadda ku matalaya Maxamed Cali Cumar Caananuug beesha Garjanta Gardheer Soomaali bayaankan oo aan soo saareen ugaaska Garjante nabadoonka waxgaradka aqoon-yahanada habeenka iyo dhalinyarada Garjante waxay cadeynayaan kursiga matalaada beesha Garjanta Gardheer Soomaali waxa deegaan doorasho u ah gobolka Gedo degmada Baardheer iyo tuulooyinka hoos yimaada sida Dhakaaje Fadhiyare Lababuul Amiiney Towsiiley Hoodoy Buulo Jameeca iyo kuwa kale gobolka Gedo waa halka xudunta u ah Garjante waa soo jireen ab ah 3 xaq ayaan u leenahay in lagu asteeyo kursigeena deegaanka ee aan ka soo jeedno ma aha mid aan codsanayno 4 waa dulmi iyo xadgudub bareer ah in loo asteeyo deegaan aanan shaqo ku lahayn 5 waxaan meel ka dhac ah in shakhsi loo asteeyo kursi reer leeyahay 6 sharciga doorashooyinka qaranka qodobkiisa 12aad farqada 3aad wuxuu tilmaamayaa in kuraasta 275 ee baarlamaanka ku saleysan tahay hanaanka awood qaybsiga bulshada Soomaaliyeed ku heshiiyeen 4.5 amba 4.5 beesha waxay ku baaqaysaa in si degdeg ah loo geeyo kursigeeda gobolka Gedo ee ah deegaanka rasmiga ah ee ku tilmaaman yahay waa mid aan xaq u leenahay ee ma aha mid aan baryeeno 8 waxaan cadeynaynaa in cid kasta oo ku yeelata asteenta qaldan ee lagu naasnuujinayo shakhsi caadaystay inuu wax ku helo boob iyo handadaad 9 beesha hadda waxay u cadaatay in kursigooda shakhsi loo asteeyay taasi ma aqbalayno mana dhageysanayno gorgortana ka gelimayno 10 guddiga asteynta kuraasta iyo maamulka baarlamaanka cadaaladiina ma waxay noqotay inaad ku dhiirataan cadaalad daro xadgudub heerkaas gaaray iyo inaad burisaan sharciga doorashooyinka ee aad dhawaan ansixiseen wabillahi tawfiiq Cabdi Fataax Xasan Kalgacal warbaahinta Goobjoog Muqdisho